maraykanka oo qirtay fashilka diyaaradihiisa dagaalka qarsoodiga ee F-35 turkiga oo horumar ka sameynaya nidaamka S-400 ee ruushka iyo diyaaradihiisa dagaalka maxalliga jambari ka hor wasaaradda difaaca maraykanka Pentagonka ayaa shaaca ka qaaday go'aankeeda inay ka saartay diyaaradaha jiilka sanaad F-35 liiska diyaaradaha laga iibinayo Pentagonka sanadka 2022 militariga maraykanka ayaa soo jeediyay in F-35 lagu bedelo tiro badan oo ah diyaaradaha F-15EX Advance sida laga soo xigtay macluumaad ay qortay jaridada Defense News wargeyska ayaa sheegay in Pentagonka uu weydiistay Congress-ka lacag dhan 1 bilyan iyo 400 milyan oo dollarka Maraykanka si ay u iibsadaan 12 diyaaradaha dagaalka F-15 sidoo kale waxay qorsheynayaan soo iibsashada 20 matoorada hawada si loo xalliyo cillad khatar oo ku soo baxday diyaaradaha F-35 marka ay kacayso waxaa xusid mudan in khubarada ay ogaadeen 900 oo cillad oo ay leedahay diyaaradda wasaaradda difaaca maraykanka ayaa dhawaan sheegtay in turkiga laga saaray barnaamijka diyaaradaha qarsoodiga ee F-35 go'aankan ayaa salka ku haya khilaafka labada dawladeed ee muddo soo jiitamayay ka uu sababay soo iibsashada Ankara nidaamka difaaca ruushka ee S-400 inkastoo turkigu xubin ka yahay isbahaysiga NATO haddana ma helin nidaam difaaci cirka waxa uuna isku dayay inuu maraykanka ka iibsado nidaamka Patriot si khataraha ku hareeraysan isaga ilaaliyo laakiin Washington waa ay ka gaabsatay arrinka iyadoo ku doodaysa inay u baahan tahay ogolaanshaha Congress-ka balse isla waqtigaasi waxaa la siiyay hubkan dawlado kale oo aanan xitaa ku jirin isbahaysiga turkiga ayaa ku baraarugsan khataraha ka dhalan kara in loo diido hubkaasi sidaasi awgeed ayuuna isku dayay inuu jidad kale ku helo waxa uuna wada hadallo la furay Shiinaha iyo Faransiiska iyagoo u soo bandhigay dalabyo ka fiican kana jaban